galmudug waa markii labaad oo cadaad lagu qabto doorashada hoggaanka madaxtinimada maamulkaas waxaa la sheegaa in caqabado dhowr ay ku horgudban yihiin mas'uulka xilka loo doortay xildhibaanada galmudug ayaa kol hore qaaday tallaabo aan maamulada kale horey loogu arag taas oo ahayd in madaxweynihii shaqada ka tagay ee maamulkaas ay mooshin ka keeneen iyadoo la sheego in ugu dambeyn sababtaas uu xilka isaga dhiibay iyo arrimo kale hadda madaxweynaha xafiiska la wareegaya ee maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxaa laga maarmaana inuu wax ka qabto caqabadaha ay ka mid yihiin burcadbadeeda isbaarooyinka dib u heshiisiinta beelaha wadadaga galmudug wada hadal lala galo ahlu sunna si mid ay u ahaato galmudug iyo al-shabaab oo jooga deegaano mudug iyo galgaduud ku yaala burcadbadeeda galmudug waa mid ka mid ah deegaanada burcadbadeedu ay ka bilowdeen wixii ka dambeeyay sanadii 2006 waxaa haboon in qaab loo wajaho la helo dhalinyarada qafaalanaysa doomaha iyo maraakiibta kuwaas oo barmadow ku reebay badaha Soomaaliya isbaarooyinka gaalkacyo afaafka hore waxaa taala isbaaro maxadadna lacagta laga qaado dadka adeegsanaya wadada laakiin waa laga maarmaan in gawaaridu ay bixiyaan lacag si ay ugu suura gasho in wadadaas ay maraan Gelinsoor isbaaro ayaa taala waxaa gaadiidka laga qaadaa min $5 beendheere gawaarida waxaa laga qaadaa min $10 ma cadda lacagtaas in maamulka ay gaarto cadaado $10 ayaa laga qaadaa gawaarida xamuulka ah iyana lama sheegin in lacagtaasi ay u gacan gasho maamulka galmudug ee cadaado jooga godin labe waxa iyana taala 5 isbaaro afaafka hore ee magaalada laga soo galo ilaa iyo halka looga baxa magaalada waxaa laga qaadaa min $3 ahlu sunna ma jira tirakoob sax ah oo laga hayo isbaarooyinka yaala deegaanadaas laakiin waxaa la qaadaa min 200 oo shilin Soomaali ah inta u dhaxaysa magaalooyinka cadaadi iyo hobyo oo ka wada tirsan galmudug lama sheegin in isbaaro ay taalo balse soo boodo ama jidgooyo aan lagu tashan ayaa lagala kulmaa dib u heshiisiinta madaxweynaha maamulka galmudug waxaa muhiim ah inuu wax ka qabto colaadda beelaha inta badan ku wada dagaalamaya deegaanada galmudug ee qabayl ahaanta isu dilaya galgaduud ayaana ugu badan deegaanadaas colaaddu hadda ay ka jirto dhammaan deegaanada galmudug sanadihii u dambeeyay waxaa ka dhacay dagaal beeleed labadii sano ee la soo dhaafay dad 100 ku dhow ayaa geeriyooday iyadoo ay barakaceen dad kale wali xal lama gaarin ahlu sunna deegaan ahaan maamulka galmudug wali waa qabyo xubnaha uu hogaamiyay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ayaa dhuusamareeb jooga dhowr wada hadal ayaana fashilmay madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dad badani waxa ay ka sugayaan inuu ka dhabeeyo wada hadallada galmudug iyo ahlu sunna u dhaxeeya al-shabaab waxaa jira deegaano iyo degmooyin al-shabaab gacanta ku hayaan oo mudug iyo galgaduud ku yaala xarar dheere ayay maamulaan iyaga oo dhanka saadka u adeegsada badda galgaduud waxaa ka mid ah magaalooyinka al-shabaab ay joogaan ceel buur ceel cali ceel dheer galhareeri ceel garas iyo xiindheere intaas xalkooda haddii uu ku guuleysto madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug waxaa dhalanaysa galmudug oo is haysata gaarina karta horumarka ay hiigsanayso maamulada kale ee dalka ka jirana la tartami karta Calaadan Muumin Goobjoog Muqdisho